رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا صاحبال كنا سودوا هذا كنال كينا أمير داي إن شاء الله ما تمقال كينو وحو كوساب سيسية هاي سيدي مركاسي جوجل أدسنسي لوصن ليو أديو إتوبيا جوجو هذا صاحبال وحاني ليها مركاسي رمضان مبارك إتكستو مسلم وحان ليها رمضان مبارك إلى هاي بشان بشهادة كلا إلى هاي ببش يبرواقو هنو غارسيو هاتان أفري فينال maanta waa day 1 maalintii koowaad ee Ramadaan weeyaan. Okay. Saaxiibayaal maanta muuqaalkani waxaan rabaa markaasi in aan kugu la wadaago haddii aad markaasi Ethiopia joogto sidee markaasi aad ku sameyn aad ku subsan kartaa markaasi Google AdSense. Haddii saaxiibayaal kanaalka waxa u badan markii si loo fiiriyo wuxuu dhahaa Soomaali ayaa u badan oo aad u daawato Soomaali ayaa laga daawadaa Ethiopia laakiin way ku yartahay. Marka saaxiibayaal muuqaalka sababtoo sameeyay waxa jirta markaasi waxaa jirto dhalinyaro aad u tiro badan oo maaragtay Ethiopia anay ugu nool oo hadan rabo markaasi in ay Google AdSense sameystaan. Haddaba saaxiibayaal su'aashaad isweydiinaysa ayaa waxay tahay muuqaalkani markaad aragtid thumbnailkiisa aan markaasi aan title uga soo dhigay anigoo Ethiopia joogo Google AdSense ma sameysan karaa ama title insha Allah wuxuu ma soo dhigi doonaa title marka aragtay iyo thumbnailka waxaan rajeynayaa in maaragtay inaan ku soo hoday marka سؤال شديد وديني سنة وحيد تعمل كاسي جوجل أدسنسي إثيوبيا مكشقية هاسا حبيال جوجل أدسنسي إثيوبيا وكشقية هذا بقى وحلو بها مركاسي إنا معركتي عدين على تصو مقال كني صومالي وانا ورطو اسمعي منينو مركو هنا عدين تصو اوكي عدين وحاني وعطان ساحبيال نورتو أنا وحيلي كستو حانج على معركتي وحان صوت شاوي إنا dadka la wadaago marka waxaan maaragtay aan soo jaabiyay dadka la wadaayo aan jecelahay xilli kasta marka insha Allah waxaan tus doonaa waxay soo dhaheen aniga horto Google AdSense ma u maleyn jirin maaragtay inuu ka shaqeeyo Ethiopia laakiin maal dhaweeytoon baan YouTube ka galay saaxiibkii Geela Bashir wiilkan online waxa ka hadlo wiilkaasi ayaan muuqaalkiisa daawaday isoo ku leeyahay markaasi Google AdSense Africa ma ka shaqeeyaa marka muuqaalkaasi wuxuu kula wadaagay markaasi wadamada uu ka shaqeeyo Africa Google AdSense marka wuxuu ku daray Ethiopia marka aniga waan la yaabay Ethiopia anaba joogay sidoo markaasi Google AdSense uu ku shaqeynaya aan dhahay okay saaxiibayaal hadda taas ka soo gudba kani waa maaragtay email aan caadis ka sameeyay oo ku tijaabiyay hadda aan soo gal markaasi Google AdSense sawjadid welcome to let's get started with AdSense waxay ku bilaabeen waxay bilaabeen Google AdSense marka waxay leeyihiin markaasi website ku xiray ay ku leeyihiin adiyo site marka haddii aad Ethiopia joogto waad ka sameyn kartaa Google AdSense lacag waxaad uga sameyn kartaa markaasi blocker iyo high link me iyo Kabur creator iyo waxyaalaha aad u tiro badan ayaa markaasi aad uga sameyn kartaa Google AdSense marka saaxiibayaal soo jeedid aniga halkan xabay imo soo diran kan 1 2 3 4 ilaa iyo waxa ii soo diran markaasi 4 Google AdSense ay 4 email ii soo direen marka saaxiibayaal kaasi waxaan rajeynayaa maaragtay inaad ku qanacdeen haddaba haddii aan maaragtay aan tuso markaasi haddaba saaxiibayaal soo jeedid horto Google AdSense markaan sidan u soo kacsado halkani waxa uu jeedaa markaasi wifi got your info waxaa isleedahay markaasi haddii lagu soo aqbalo ma halkaas ku saaraan saaxiibayaal halkaas tigta waxay saarayaan ilaa aan Google AdSense geega aan markaasi ku xiro payments insha Allah muuqaal aan iga sameyn doonaa sida markaasi Google AdSense payment lagu xiro marka saaxiibayaal haddii aan markaasi aan soo qaybtan aan soo galo xaqiiqda waxa rabtaa inaad ogaato inuu Google AdSense Ethiopia inuu ka shaqeynayeen kale waxaan ku hayaa markaasi saddex caddayn ku tusayaa muuqaalkan markaasi ha tagin haddii aan payment qaybta taabto payment info ka sii tago payment info sawirta halkani maxaad ku aragtaa adiga indhaha qumaad u fiirme payment account AdSense Ethiopia marka AdSense marka Ethiopia uu ka shaqeeyaa Google AdSense waa kana meeshan ku xidhay marka insha Allah muuqaalkan baan rabaa inaan kugu la wadaago sida AdSense markaasi loogu sameeyo Ethiopia joogo kow waxaan ku tusay email isu diray laban waxaan ku tusay in ay ku qoran tahay payments Ethiopia marka saddexaadna waxaan ku tusi doonaa markaasi markaan sameeynaya ayaan ku tusi doonaa okay saaxiibayaal ugu horeyntii waxaad soo gelaysaa ugu horeyntii Google AdSense ayaad soo gelaysaa Chrome-ka soo gelaysaa ka wada afwan Chrome-ka soo gasho qaybtaas iyo searching waxaad ku qoraysaa markaasi Google AdSense qomaatin u fiirso sidaan ugu qorayo okay waxa ku qoraysaa markaas saaxiibayaal Google AdSense
markaas ugu qorto kadib waad diraysaa marka intaad dirto kadib waa kana website ka saxda waxaa jira markaas website aad u badan markaas ka ilaali ka saxda waa kana marka ku dhufanaysaa Google AdSense Google aad ku dhufanaysaa kadib marka saxba seetan ay ku saari doonaa aniga luqadayga duunta halka gedi start ay ku dhahayaa marka ugu horeynta waxa sameeyay markaas qaybtan ay ku qoran tahay gedi start ay ku qormayso qaybtaas ay ku dhufanaysaa marka saxba la ku dhufato kadib halkan waxa ka dooranaysa markaasi emailada yani emailka aad ku sameynayso Google AdSense-gaaga aniga hadda email badan ay ugu jira marka email kamid ah ayaan dooranayaa muuqaalkan kaliya ma sameysan karo yani sameeytaan uma ahan kaliya qof maaragtay Ethiopia joogo yani qof kale yani wadanka kale joogo yani uu sameysan karaa isagana kaliya tilmaamaan qaybaha Ethiopia gelinay ay wadankiisa gelinaya okay halkan saxab aan ku horeyso wuxuu ku dhahayaa markaasi your site geli website-kaada marka waxa leedahay I don't have site yani ma belihi waxa website ah okay qaybta markaas wuxuu ku leeyahay يعني get more out of AdSense يعني ما rabtaa in lagu caabiyo Google AdSense-ga halkan yes ayaa iska leedahay kadib qaybtan ayaa waxa gelinaysaa markaas category-ga qaybtan kuugu sheegayo okay qaybtani waxaad markaas aad ka helaysaa wadamada loo ogol yahay Google AdSense-ga ilaa insha Allah muuqaal ay ka sameyn doonaa wadamada loo ogol yahay Google AdSense in saxbal qaybtani yani wax iskugu xigaan sida xarfaha sida oo kale ay iskugu xigaan hada diida Djibouti oo kale yani uu ka shaqeeyaa Google AdSense hadii qaybaha u jeed markaas u jeedid waa iidan markaas Ethiopia ayaa u dameyso marka saxaabyaal hadda diyaan markaas inuu qadniyo kaas Ethiopia uu ku jira oo Google AdSense uu ka shaqeeyaa Djibouti uu ka shaqeeyaa okay marka saxaabyaal yani hadii aan markaas aan tuso Soomaaliya okay est ayaan ka raacina meel ay ku taagan tahay markaas est ay ka bilaabato ayaan raadinaynaa Kenya kala haduu ka shaqeeyaa Google AdSense ay saaxiibayaal sida u jeeda qaybtan markaasi waa esta baan soo istaagnay yani xaraf walba soo yani wadan walba xarafku ka bilowda ayaa la isku waadiyo okay qaybtan markaasi Soomaaliya ka dhex raadiya okay South Africa South Korea Spain Sri Lanka okay Sweden Taiwan ayaa soo gasho marka Soomaaliya kuma jirto marka taasi waxay cadeynaysaa in uu Soomaaliya uu ka shaqeeynin wax Google AdSense ah okay hadii aan markaasi aan maaragtay aan iimaano aan ku soo laaban Ethiopia dan ku dhufano kadib aan ku dhufano yani asxaabta markaasi muuqaalkan daawanaysa ka raali lahaa intaasi yani waxaan ku qancinay dadka Soomaaliya joogo in uu ka shaqeeyo Google AdSense Soomaaliya okay starting using AdSense ayaa leeyahay kadib marka ay taado okay had sax bas u jeedada qaybtaas u horeyso wuxuu ku leeyahay payments yani calaamad leeba saaran qaybtan settings-kana waa qaybta website-ka idana waa yani waxa saaran calaamad leeba okay hadda waxay ismeena markaasi inaynu buuxino Google AdSense oo horem ku siitan ku saaro wajahada qaybtaasi ku qoran tahay enter information hadda zoom niso dhaw qaybta enter information ku qoran tahay ku dhufanaysaa kadib marka ku dhufato kadib toos wuxuu ku saardaa markaasi warqada la buuxinayo ee Google AdSense okay sidan ay ku saaray okay hadii aan ku niga soo bilaabo qaybtaasi ku qoran tahay account yani ku qoran tahay individual ku ahaato yani business ka dhigin individual ka ku daa qaybta kale markaasi ku qoran tahay name and address yani oo hore wuxuu isgelinayaa emailka magaca ku qoran ee meesha gelisay sax yahay yani magaca haduu sax yahay Google AdSense-ga يعني magaca email ku qoran haduu meesha uu ku saxan yahay oo ku diisansaa laakiin hadii uu maaragtay magacaada ku qorneen ama magaca horaas ka diisan hadana waxa iska qoriyaa waa tijaabo okay qaybta kale markaas address 1 qaybta aadka loo baahan yahay weeyaan address 1 waxaad gelinaysaa markaasi meesha aad joogto ama address-kaaga hadda aniga Ethiopia maadaama aan joogo address waxa ii ah magaalada aan joogo magaceeda okay halka markaasi waxaan iska gelinayaa goday ayaan ka dhigayaa okay marka qaybta address line 2 qaybtan aynu iska optional waa iska dhaafi kartaa okay postal code-ka imaaday postal code-ka magaaladaada ayaad gelinaysaa halkan insha Allah muuqaal waan iga sameyn doonaa postal code-ka ama muuqaalkan dhamaadkiisa ayaan ugu tusi doonaa postal code Ethiopia okay 3040
waa yadeeda goday la joogto weyn aad samaysanayso goday waxayan 3,040 okay 20 cent caasimada yani dalka okay halkan hadii Ethiopia caasimadeeda waa Addis Ababa ay gelinaysaa kadib qaybtan waxaad gelinaysaa phone number ayaad gelinaysaa numberka ayaad gelinaysaa +251 okay marka inta hada geliso hada kaliya waxaan qariyay waa lambarka waxyaalaha kale oo caadi u arki doonta marka hada yani dib u soo sheegare qaybta horeyso name magaca gelinaysaa qaybta labaadna addresska hadiginta ayaad gelinaysaa qaybta saddexaadna waa iska optional waa iska tii kartaa hadii kalena waad bixin kartaa discount-gaaga qaybta afraad markaas iyadana postal code-ka ah iyadana waad gelin kartaa markaas postal code-ka waa qasab muhiim yani postal code-kaasna ka khaldamin postal code-kaada geli hadana magaaladan joogno postal code-keedu waa 3,040 lambarkaadana geli lambarka waxa loo baahan yahay lambar maaragtay caadi oo hadda ku jiro telefonkaada yani way verify garanayaan oo message ay ku soo dirtaan okay submit ayaa leedahay xagaasna muhiim waa inaad soo chegarayso submit ayaa u diraysaa okay saaxibayaal markaas sidaan submit ugu dirto hadda wuxuu ku leeyahay yani waxaan iska check garanaynaa lambarka inuu adigu wato iyo in kale okay lambarka markaas hadda waxay ku leeyihiin yani taxi yani ma qoraal ahaan baan kugu soo dirnaa lambarka mise yani cadow ku soo aanaa gaal marka taxi baan leeyahay message baan leeyahay hadda maartay soo aan muuqaalka ay ka sameeyay marka send ayaa leeyahay okay hadda markaas wuxuu leeyahay verification code halkaasi fadlan geli code-ka ku soo dhici doono okay code-kan sugina uu noo soo dhici doonaa sababteeda taas uu geeray marka code-kan noo soo dhacay kadib koobi ayaad ka soo leedahay code-ka kadib qaybtaas aad xoog u nabaysaa paste aad ku leedahay okay hadda markaas submit ayaa leedahay isla markiiba saas ku sii aqbalay marka saaxibayaal soo jeedid paymentis sidaan ayuu noqday inshallah markaasi 2 days 4 days 1 week adii waqtigay noqoto way kugu soo aqbali doonaan inshallah saaxibayaal markaasi sidaasi ayaa loo sameeyaa markaasi Google AdSense hadda Ethiopia joogo inshallah muuqaalka aan ka sameyn doona kulli waa isku mid ma garteen marka qaybta saaxibayaal hadii aan maartay intuso postal code-ka sidii loo saaro hadda Ethiopia joogto qaybtan Chrome-ka hadii aad tagto soo gasho halkaas kaliya waxa ku qoraysaa searching-giga Ethiopia ayaad ku qoraysaa postal code okay Ethiopia postal code aad ku qoraysaa halkaas anigu qoriyaan kadib waa diraysaa okay Ethiopia postal code ka ujeedadu waa kaasa si fiican u fiirso Ethiopia postal code kadib waa kuna postal code-kii kan website-ka ayaa ku dhafanaysaa marka ku dhafato kadib website-kan markaasi wuxuu ku sheegi doonaa magaalo walba oo aad Addis Ababa joogto hadda Dir Ababa joogto mudan walba oo aad joogto postal code-kiisa hadda ujeedadu waxa uu soo horeeyo Addis Ababa zone 1 baa u soo horeeya waa kuwa postal code-kiga Addis Ababa hadda hadii markaasi aan soo goday meeshaan hadda joogo postal code-keeda waxay ku jirtaa magaalooyinka u hooseeya ku jirtaa saaxibayaal hadii aad maaragtay aad joogto dhagax buur oo kale postal-keeda waa 3,260 wax kanada okay postal code-kaada anagu aan leenahay waa kana goday dhanaan okay goday dhanaan waa noo dhawaa marka goday dhanaan waa 3,040 marka postal code-ida inshallah halkan ay ka eesanaysaa muuqaalkan uu si dheer ugu fadheeraan filayaa aad buu sidii daawashada video daawateen inshallah muuqaalka xigo waxaan maaragtay rabaa inaan nagula wadaago si markaasi loo sameeyo blogger website المؤسسين بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته